wiilkan Soomaaliyeed waalidow diinta islaamku ka baxay waana wiil quraanka lagu soo baray Afrika kadibna ku soo noqday qurbaha waxaan kula kulmay meel kamida North America waxay la soo xiriiday hooyadii ilaahina subxaanahu wa ta'ala wuxuu waafajiyay wiilkii inaan kulanno waqti badan maalmo badan aan qaadano si aan u ogaado waxa ku kalifay tawxiidka inuu ka baxo muuqaaladan fadlan waalid saad u hesho marka hore channelkan adaa lagu sameeyay waxaana la yiraahdaa Walid Legacy Channel fadlan subscribe deh walaalaha muslimiinta ehelka asxaabta la share gare subscribe hadhahan bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meel kamida North America wadamada Canada iyo Mareykanka meel kamida sheegi maayo meesha ayaa waxay la soo xiriiday hooyo i garanaysay waxayna ii sheegtay qadiyada wiilkeedu inuu diinta ka baxay muddo kadib ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu waafajiyay wiilkii inaan la kulmo wuxuuna iga ogolaaday inaan la sheekaysto waxaan weydiiyay su'aalo fara badan wuxuu ii sheegay in college uu dhigto wuxuu ii sheegay in Afrika la geeyo quraanka uu soo bartay ma hubo inuu igu yiri waan soo xafiday laakiin waxaan hubaa inuu igu yiri quraanka waan soo dhameeyay waxaan weydiiyay marka waxyaabaha uu ku wareeray ee islaamka ku saabsan ee uu jeclaan lahaa inaan ka wada hadalno wallahi waan xusuustaa 6 arrin buu ii sheegay 6daba waan qortay waxa kamid ah waalidow kow qadiyada oranaysa aw ma malakat aymanahum macnaheeda ayuu ku wareeray waxaana si khalada ugu sharaxay buugaag ay qoreen dad aan muslimiin ahayn waxa kamid ah qadiyada waxa la yiraahdaa tadawurka aadamahu oo maray abuurkiisa macni waxa la yiraahdaa theory of evolution ama si kale hadaan u dhaho dadka aaminsan bini'aadamku daanyeer buu ka yimid kadibna waa isbedelay ilaa uu qof noqday waxa kamid ah qadiyadahan ah waxyaabaha ibtilaa'aadka ee mixinka ee dhacaya maxay u dhacayaan midalan qof wanaagsan oo muslim ah kansar baa ku dhacay muxuu u dhacay hooyo ayaa ilmaheedii yara ka dhimanaya muxuu ga dhintay badweynta soo rogmanaysa tsunami maxay u dhacaysaa waxa dhacaya earthquake dhul gariir muxuu dhacaya waxa kamid ah maxay wadamada muslimiintu u daba mareen oo technology ahaan iyo laga badiyay macni si kale hadaan idhaa wuxuu leeyahay diinta islaamku haday sax tahay maxaa dadka aan muslimiinta ahayn ay u horumareen maxaa keenay in sharciyadooda iyo institutionadoodu ay adag yihiin annagana aan isdilayno 30 sano in ka badan aan dib dhacnay wax walbo dhiba aan sameynayno marka wadanka Soomaaliya ka hadlaya Allah badbaadiyo wadankeena waxa kamid ahayd qadiyad iyadoo aan diin shaqo ku lahayn laakiin ahaa macalinkiisa quraanka inuu xanuujiyay oo quraanka markuu barayay wuxuu yiri qalin bu farta iga qaban jiray aad buu ii xanuujin jiray maxaan arrintan waalid idigu sheegaya waxaan idigu sheegayaa kow hooyada Soomaaliyeed dadaal uma hadhsanay wax walba way samaysay wallahi markaan la sheekaystay hooyada haday cumra noqoto haday noqoto wadankii inay geyso quraan soo barto wax walba way samaysay laakiin wiilkii waxaa jiitay dhaqankan iyo the dominant culture of America dhaqanka meeshan jira pop culture kan waxaan la daawanayo buugtan la akhrinayo musican asxaabta la socdo miisaanka nolosha loo watay lagu dhereerinayo waxaa jiitay meesha markaan taaganahay bal quraanka xaqiisa aan eegno waxaan rabaa inaan tusaalayaal bixino nabiyullaahi nuux alayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam waa nabi la soo diray nabigi u badnaa ee aadamaha la hadlayay 950 sano waalido ka fikir qof tawxiid kala hadlaya an ibudullaha wa taqu qof bini aadamka dhanaa kule war ilaahay u soo noqda wuu ida aqbali wa idii dambi dhaafi waana ida barwaaqayn istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna lillahi waqara laakin xilliga uu joogay waxaa jiray culture waxaa jiray elite wax la yiraahdo oo bulshada dhinaca uu nabi nuux alayhi salaam ugu yeedhay mooyee dhinaca cagsiga ugu yeedhay waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra qolo waxaa jirta elite oo quraanku almala ugu yeedho oo ugu yeedhaysay culture markaa jiray oo ugu yeedhaysay falsafad markaa jirtay oo bulshada ugu yeedhaysay ideologiyad markaa jirta oo lahayd nuux raacina u fiirso hadii nabi nuux 950 sano oo aadamaha tawxiid iyo islaam ugu yeedhay ma u malayn caruurtiisa ee waqtigiisa inuu waqti yar galiyo maya bal ee waqtiga ugu badan iyagu galiyay soo ma oran karno waalid xilligii nabi nuux masaajidka ugu weyn ama meesha tarbiyada la qaatay ugu weyn ama guriga ugu dacwada badan gurigii nabi nuux buu ahaa gurigiisa ahaa ee nabi nuux gurigiisa ahaa mid kamida wiilashiisii ayaa waxa qaato la tagay waxa wiilkan Soomaaliga la tagay hadaan isleenahay hooyadan dadaal uma harsaneen siday waxaan ku dhacday nabi dhanoo ilaahay soo diro ulul azmigii ahaa oo 950 sano umada la hadlayay wiilkiisii ayaa waxa qaatay culture-kii markaa jiray religionkii markaa jirtay pop culture-kii markaa jiray ilaa markii u dambeysay isagoo doonta saaran oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala farta cidif cadaab iyo biyo ka keenayo oo xitaa ku yiri aabe kale
كالي نصارع نمانكا أتكون احترت كصوبح يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين آيدي أورانيسي أبدون تبدبادة صوفول أو كالي دادكا قالضا ويلكو وحوليكو قناعسين يحي بيأدي وكوكوري إيا وحي وكبرت وحسو حيستينوس بدبادين كرو واكا أوراني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أبو حبا يشيغن أنا اسبدبادين كرو محانو لجيدا عرورتين ومانتا وحيابها اللي كنت احجران راشناليتي فيمينيزم بوست مودرنيزم ايديولوجيادا فلسفة أفكارتا كالتشركا نقامدا وحاني أركيان وحاسو دان وحي موديان حرية إني كهليان وحي موديان عقلي إني كهليان وحي موديان والدكود إني كأقوم بدين وحاني أوغين دينجر كود هجرة خطرت كود هجرتا إني تهمد دين تو ذا بربورين دوم سيدا النبي نوح عليه السلام ويل كيسا إساقو واحد أركتو دذالك قليه حدانا كالتشركاسي أوغا كحيستي أيا هو يدن صوماليد والد كان صوماليد يدا وحل بس ميسي كالتشركان waa ka hayst waxaan rabaa qodobadan waan wadi doonaa laakiin inaan hal arin ku soo gabagabeeyo alxamdulillah ilmahaasi diinta islaamku soo noqday niqaash badan oo na dhex maray oo walaalaha waalid legacy ay waqti galiyeen ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa maanta inuu tawxiidka ku soo noqday ilaahay waxaan uga mahad celinayaa in aniga markuu wiilka ku soo noqday tawxiidka aan ku daba tukaday oo isagu itujiyay alxamdulillah rabbil alamin waalid channelkan adaa lagu sameeyay waalid legacy fadlan subscribe isaad muuqaaladan u hesho waan wadi doonaa tusaalayaal kale fara badan baan keeni doonaa iyo 10 walaalaha muslimiinta la sheer garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.